إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون walaalkeena saaxiibkeena ilaahay u naxariisto janno firdawsna Allah ka waraabiyo muraadkeena maraasmina Allah saalo waa geeri naxdin leh ilaahay waqtigiisana iska dhamaaday insha Allah waxaan Allah u wadal ka bareynaa ilaahay inuu jannada ilaahay ugu bishaareeyo nin walaal oo wanaagsan buu ahay nin aad u cibaado badan buu ahay ilaahay idinkiisa Allah u wadal waxaan uga bareynaa inuu jannada ilaahay ugu bishaareeyo bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan ugu tacsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed marxuumkii halkan aan ku aasnay ee ka baxay waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meelkasta ay joogto dibadda inaan ugu tacsiyeeyo waxaan kala rabaa inaan ugu tacsiyeeyo wasaaradii warfaafinta uu ka baxay oo wasiirkeedii haddana ilaa iyo hadda godka nagol hubsaday agaasimaheeda guud ee wasaaradda al-Cadaala waxaan kala rabaa qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday aabba iyo hooyo iyo walaal iyo waalid iyo aqrabo waxaan leeyahay jannadii firdaws ahayd Allah ka waraabiyo samir iyo iimaan intaas aan soo sheegay Allah ka siiyo martii jecel yahay Allah ka dhigo ummadda Soomaaliyeed waa ku celinaya waxaan naga baxay maanta wiil dhalinyaro oo hami weyn u qabay maanta inuu dalka wax ka noqdo sida ay qareen asxaabtiisii la joogtay lana shaqaynaysay ana kana aan qareyno waxaan leenahay jannadii firdaws ee Allah ka waraabiyo martii la jecel yahay maanta Allah ka dhigo maanta waa gudbay waxaan leenahay su'aashii Allah u fududeeyay sakaraadka waa gudbay su'aashii aakhira Allah u fududeeyo unkuna wana kale waxa ka horeeya waxaan ka rajeynaa in ummadda Soomaaliyeed mar walba inuu Ilaahay صبر إيمان كسيو خواسكي إهلدي أصحابتي والله أنت أمد ماشى ما أنت وجوكت سوون تمد محلية إذا كان أسكيس كساقب كشيء أجري حسنات الله هذين كسيو إن لله وإنا إليه راجعون ولكن عبد الرزاق إلهي هون حرستو إهل كيسنا سمري إيمان كسيو وحوها صاحب بدن وحوها ودني ودن كيس أميسن كنا كرسون سوى دلير أو وقت دلير تهريب تأه أيوة ضم بدن شقو تجيم وحبرشوا mar walbana wadankiisa ku soo laabanayay nin waxa uu ahaa daacad ah oo wadankiisa iyo dadkiisa aaminsan oo saaxiibo badan sida la wada qiray intii taqaanayna nin cibaado badan farxad badan run badan oo akhyaar ah dadku aamino ayuu ahaa oo rajo iyo mustaqbal wadanka ku leh marka Ilaahay ha u naxariisto tiisa ayaa timid waxaana saaxiibada ugu baaqiyaa in inta suurtagal ah laga warqabo caruur yar yar oo ka tagay oo agoma ah marka Allah u naxariisto ayaan leeyahay Cabdirasaaq inta ka soo qayb gashan Ilaahay samri iimaan ha ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta waxaan u joognay aaskii walaalkeen Cabdirasaaq runtii nin garabna oo ahaa saaxiibna oo ahaa runtii aad u qiimo badan oo naga baxay buu ahaa iyo qaraabadii iyo saaxiibadii oo ka baxay iyo familkiisba waxaan leenahay Ilaahay samir iimaan ka siiyo badal khayr qaba Ilaahay idinku bedelo runtii maanta waxa shalaytinimo iyo dib u sugnaatay gacantii ka xaqdarneed ee dibtaas geysatay Cabdirasaaq wuxuu dhintay xilli salaadii casirka oo ka soo baxay runtii dadkii ugu dambeeyay oo la hadlan ku jiray marka waxaan leenahay Ilaahay dambi dhaaf ha muujiyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وحان مانتا آسكيس أسوق النمت ولالكين صاحبكين Cabdirasaaq Cabdullaahi oo sida dhammaan saaxiibadiis iyo ehelkiisa iyo kulli ay wada qireen Cabdirasaaq nin runtii dhalinyaro ah oo aad runtii u qiimo badan oo ahaa dhalinyarada wadankan inay wax ka badbaadiso ku jirto oo maxay ahayd oo ku jiray Cabdirasaaq sida la sheegay annagana aan ognahay oo ka marqaatinahay maadaama aan ehel iyo walaalanahay wuxuu ahaa nin cibaado badan oo runtii waxyaabo dhalinyarada aysan inta badan ay awoodin intooda badan Ilaahay haleejiyay maahina oo sameyn jiray nin khamiis iyo isniin walba soomi jiray nin shaqadiisa runtii aad u jeclaa oo xilliga shaqadiisa aan ka soo dib dhaceen xilliga shaqada ku baxayeen oo san maxay ahayd kadib
ka hormareynin oo ahaa cabdirasaaq nin saaxiibo badan oo saaxiibadiisa siday u jecel yihiin ayaa waxaa ka muuqataa aaskiisa ay ka muuqataa sida maxay ahaatee waalidkiisa oo baari ugu ahaa aaskiisa ka muuqataa marka saaxiib runtii aad qaali u ah oo aan niyadeena runtii ka go'i doonin oo runtii uu yahay maanta wuxuu naga mudan yahay inaan u duceyno haddii ilaahay yiraahdo jannadii ilaahay ka waraabiyo camalkii fiicnaa uu sameynayay ilaahay ha ka aqbalo iyo waajibaad kale oo nasaaran in aan ka warqabno caruurtii iyo xaaskii oo ka tagaynay inaan ka warqabno insha Allah haddii ilaahay yiraahdo intaas aan runtii mas'uul naga saarnaa muhiimsan haddii asxaab iyo walaal iyo kulli hadana intaas aan isku tagno marka Allah u naxariisto walaalkeen insha Allah wala wada dhimanaya qof aan dhimaneen walahan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un runtii waxa ku baxay meeshan qof qaali ah runtii aad loo jecel yahay dhammaan saaxiibada ehelada wasaaradii uu ka tirsanaa ee warfaafinta asxaabtii dhammaan laga bilaabo wasiirka ilaa iyo agaasimayaasha dhammaantood oo maanta aaskan diyaar ku ah runtii aan u soo kala harin iyagana waxaan leeyahay dhammaan samiri iimaan Allah naga siiyo cabdirasaaq qof noolaanaya ma jirto qof walba waa dhimanaya kulligan waa dhimanaynaa insha Allah taala sida maanta aan u aasnay cabdirasaaq ayaa naloo aasaya ninba maalin baa loo imanaya laakiin ma garanayno xilliga iyo saacadda iyo goorta ma fahmayno marka waxaan isku dardaarmaynaynaa dhimashada inay xaq tahay saacadda noo qoran aan saacadna lagu daraynin goobta aan ku dhimanaynana ilaahay u qoran tahay annaga aanan war ka haynin marka insha Allah taala ha loo duceeyo cabdirasaaq hana la iska cafiyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii cabdirasaaq taqiinay dalka gudihiisa iyo dibadiisa wixii joogaba iska soo cafiyaan leenahay iska soo cafiya hana loo soo duceeyo insha Allah intaasaan rabnaa inaan ku biirino inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un marka hore ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto walaalkeen saaxiibkeen cabdirasaaq cabdi cabdullaahi oo sida halkan laga wada sheegay ahaa shakhsi runtii aad iyo aad u wanaagsan ahludiina Allah subxaanahu wa ta'aala ku xiran waqtigii ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu u qoondeeyay inuu adduunyada joogo ayaa intaas ku ekaa waxaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala sidii la sheegay uga rajaynaynaa in qabrigiisa uu u noqdo beer ka mid ah beeraha jannada ilaahay subxaanahu wa ta'aalana dembigiisa dhaafo intaas ka sokow waxaan rabaa inaan ehelada soo gaarsiiyo tacsi rasmi ah oo madaxda qaranka Soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo ku-simaha ra'iisul wasaaraha wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda oo shaqo ku maqan ay idin soo direen oo idin soo gaarsiiyeen oo ay idin la qaybsanayaan xanuunka ay leedahay geerida cabdirasaaq wuxuu ahaa shakhsi qaran ma ahayn qof ka baxay qoys kaliya wuxuu ka baxay qaranka Soomaaliyeed shakhsi miisaan leh wadankiisa u halgamay geesi ah daacad ah Allah subxaanahu wa ta'aala ku xiran kuna kalsoon ayuu ahaa waa huba in kuwa baadiyoobay dilay aanay garanaynin cabdirasaaq waxa uu ahaa marka waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga rajaynaynaa jannatul firdaws inuu geeyo waa u duceynaynaa waxaan kaloo magaca madaxda wasaaradda iyo madaxda dawladda aan ku hadlay halkan raba inaan ehelada uga ballan qaado in aan ka warqabi doono daryeelka qoyskii uu ka tagay iyo caruurtii haddii ilaahay uu yiraahdo xuquuqdii dawladda Soomaaliyeed uu ku lahaa inaysan ka go'i doonin qoyskiisa oo ay u jiri doonto biidnillaahi kariim mana aha mid asaga ka bilaabanaysa dad badan oo iyagoo shaqada qaranka haya ku shahiiday oo gacanta cadowga ku baxay ayaa sidaas hore loogu sameeyay isagana sidaas ayaan muxuu ahaa ugu sameyn doonaa qalbigeena ayuu intaan noolnahay baaqa ku ahaan doonaa isaga iyo intii kale ee ku shahiiday weerarkii cadowga ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhammaantood ha u naxariisto inta dhaawaca ahna ilaahay ha bogsiiyo tan ugu dambaysayna waxay tahay qof kasta waqtigiisa ayuu ku dhimanayaa dadka Soomaaliyeed iyo dadka dawladda u shaqeeya
aan ku jirno gaar ahaan dadka wasaaradda ka shaqeeyana nama cabsi geli doonto waxa ay sameeyeen argagixisadu wax naga bedeli doonto waana dhiirigeli doontaa waxaan nahay muslimiin iimaan leh oo yaqiinsan geerida aaminsanna in ay waddo xaq ah ku taagan yihiin oo aysan jirin dariiq ay uga weecdaan ilaa inaan dariiqaas ku taagnaana ma ahani marka kuwa baadiyoobay waxaan leenahay qof dhintay oo waqtigiisa ku dhintay oo ilaahay intuu u qadaray adduunyada ku dhintay ma sababi doono oo ma keeni doono inaan u cabsanno idinka oo dariiq baadil ah ku taagan oo aan ognahay jidka ku socotiin inuu yahay jid ku dhammaan doona jahannaba haddii ilaahay subxaanahu watacaala uusan idin soo hanuunin ama aanu hanuun idin qadarin cabdirasaaqna wuxuu ka mid yahay dadka qarannimada Soomaaliyeed u shahiiday wax kale looma dilin cabdirasaaq wuxuu u dhintay dembi kalena ma gelin maxaad u nooshahay oo qof muslim ah oo wanaagsan oo caqiido leh oo dadkiisa iyo dalkiisa u shaqeeya u tahay oo aad dalkaaga ugu shaqaysaa sida laga yaabo in dad badan arkayaan cabdirasaaq kama kuma dhiman si kasaha loo dilay waa toogteen argagixisadu waa dileen marka nin dhalinyaro oo qurxoon oo cibaadada wajigiisa ka muuqato sujuudda ku taalo muxuu ahaa wajigiisa ay sujuudda ka muuqato calaamadda sujuudda ay ku taalo ayaa qof sheeganaya diin uu toogtay si ku talagal oo aan kama ahayn marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kala miisaami doona annagana nama walwalgeli doonto idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin xanuunka iyo murugada waa la qaybsanaynaa qoyska iyo hooyada waana garab taagannahay ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalkan sida la sheegay ha u wada naxariisto ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay u soo duceeya walaalkan ducadiina ayuu u baahan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala uga barya inuu qabrigiisa u waasiciyo innaga oo og in uu yahay madluum la dulmiyey oo xaqdarro lagu dilay oo aan qori sidan oo aan cid duulaan ku ahayn oo dalkiisa iyo dadkiisa irsaaqada xalaala muxuu ahaa iyo camal xalaala u haya waa mahadsan